matalaad la'aan waxay noqon doonaan kuwa ka xorooba qof loo soo magacaabay. maanta waa maalin taariikhi ah runtii waxa waa ummadda Soomaaliyeed ay codkooda ku cilbixi doonaan ay dooran doonaan qofkii iyaga ay doonayaan ee gudoomiyaha degmada u noqon lahaa iyo u noqon lahaa gudoomiyaha gobolka. waxa halka ka baxay madaxweyne wax soo magacaaba ra'iisul wasaarka ku dhaqanaa guud ahaan dalka Soomaaliya waxay u noqonaysaa taariikhiya sideedaba caasimadda haddii mar amni iyo doorasho kala dambeeyna ay dhacdo oo runtii waxa waa si daacad u dhacdo doorashada xildhibaanada runtii waxa waa dadka matala inay baarlamaanka ah inay ka dhacdo dalka taasoo dariiq ah albaabkii ugu horeeyay ee runtii waxa waa dalkana xasilooni iyo waxa waa runtii ku soo hagi doonta kala dambeyn. doorashooyin meelo badan way ka dhacaysaa oo iska deegaan ah Muqdisho ka dhici doonta waxay noqon doontaa mid saameyn aan caadi ahayn ku yeelan doonta. waa wax runtii waxa waaye lagu farxo lana soo dhaweeyo. qodobkayga labaad waxaan ugu hadlayaa weynana haddii wax wanaag ay ku shiraayaan runtii waxa waa ayaha mustaqbalka ummadda Soomaaliyeed ka shirayaan laakiin